halkan waa isgoyska Saybiyaano ee magaalada Muqdisho. afar iyo tobankii Oktoobar sanadii 2017 waxaa halkan si dirqi ah kaga gudbay gaari xamuul ah oo lagu raray dhammaan wixii la heli karay ee ah qarax iyo agabyada kaalmeynaya ku fidista khasaaraha baaxadda dhulka. si siman loogu raatiro dadka iyo deegaanka oo qiyaas ahaan ku dhawaad 500 oo mitir oo isku wareegsan ayaa isqabsatay qiiqa ka dhashay gubashada dadka iyo hantidooda. isgoyska 14 Oktoobar Ekizobe ee magaalada Muqdisho. 4 sano kadib oo aan halkan la taaganahay mid kamid ah daljirayaasha aan ku seexano waxa uu wax ku hubinayaa indhihiisa isagoo kaashanaya tababar aan raacsiisneen wax agab ah oo uu ku hubin karo khatarta ka imaan karta gaariga uu baarayo. daqiiqado kooban oo aan halkan joogay dadku uma eko kuwa maalin xanuun badan ay soo martay oo goobtan dad iyo hanti kaleba ka camiran sidii hore. haddaba aan dib idiin celiyo sidee ayuu ahaa jawiga iyo dareenka dadka maalintaasi iyo maalmihii xigay. degmada Hurwaay waxaan u imid in aan dhiig shubo dhiiga maadaama aan shubi lahayna maartay biisi ay noqotay meeshii idan markaa sugaya leeri waxaan isku dayayaa inaan sugto walaalahayga kaalmeeyo dhiigayna ku kaalmeeyo dhiigay ku sadaqaysto waxaan la yaabanahay dhibka dhacay waxaan dhigi lahaa dadka Soomaaliyeed ha isku dubnaadaan waxa dacafigan iyo dhibaatadan keenay maanta inaan bartaan aan ku weyn dad badan qalin ugu ah waxay tahay waa kala daasanaan waana koo in sameeyay inaad kala noqon dad oo macnaha kala daasan oo kala qaybsan aan noqono dad isku duuban anaga arday aan nahay waxa uu aynaa waa ardayda naga dilay waalidkeena dilay walaalaheena dilay cadawgiina waxaan in leeyahay Soomaali dhamaan cadawgiina waxay ku raajireen dhacdiina marka dhamaantiin baa cadawga la iska difaaco qof walba waxa loo baahan yahay inuu dhiirigelin u sameeyo hadii qof walba isku kalsoonaado waxa laga yaabaa maanta dhamaan Soomaaliyeed inay nabad ay yeelato. jawaabaha xasuusta leh ee dadka bixinayaan 4 sano kadib wali waa sideedii taasi oo ka dhigay in dadka Soomaaliyeed aysan marna iska ilaawi doonin mahadadii ay nagu reebtay qaraxii 14 Oktoobar. maalin sabti markuu dhacay waxa meeshaan imaaday maalin arbaco ah maalintii shanaad waxaan ku arkay halkaasi ay nimanka soo marayaan gasac kartoon oo ku jiraan lafo iyo faro iyo waxyaabo badan aad loogu calool xumaado meeshaan saameyn badan bay dadka ku reebeen. alxamdulillah intii dhimatana Allah u naxariisto lama iloobi karo wallahi. haddaba waxaa jiray hay'ado dawladeed iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo bilowgii hore ee dhacdadan tagay goobta ay mashaqadu ka dhacday waxaana doortay tabinteeda inaan wax ka weydiiyo 4 sano kadib meesha ay joogeen xilligii uu qaraxa dhacay. xasuustii ugu horeysay ay diiwaan gelisay maskaxdooda casharada ay ka barteen wixii dhacay iyo taladooda sida loola macaamili karo mushkilad la mid ah taasi ee banama badee. inkastoo dhammaan hay'adaha dawladda ay si siman isugu xilqaameen ka jawaabidda khasaarihii Zobe haddana waxaa jiray shakhsiyaad Soomaaliyeed iyo hay'ado gaar ah oo ka tirsan laamaha dawladda in culays gaar ah uu ka saarnaa sida wasaaradda caafimaadka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. bahda caafimaadka Dr. Abdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa Amiin Ambulance ayaa ugu horreyn buu weydiiyay xasuustiisa maalintaasi iyo sida ay ula falgaleen natiijada xanuunka badneed ee 14 Oktoobar maadaama ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee goobta tagay. wallahi runtii aad iyo aadan u niyad jabay aad iyo aad u xanuunsaday aad ilaa hadda ku riyoona ku qaroona wixii aan aragnay yani ma ahayn yani wax yani qof bini aadan oo adkaysan karo wixii meesha ka dhacay kii ku dhintay waa ku dhintay kii ku dhacmo ku dhacmo laakiin qofka kale ee arkaya ayaa lafkiisa waxa ku dhacaysa mental trauma yani maskaxda waxa u dhacaysay trauma aan markaas dadku lama arka laakiin trauma healing badan dadku u baahan yihiin kasoo kuwii maqlay iyo kuwii ku dhacmayba waxay u baahan yihiin trauma healing in loo sameeyo ay u baahan yihiin marka wax weyn meesha ka dhacay
يعني هداد أرتي كور بالقف جبناي وتقام إن أقوم وحكي ولكن قف جبناي أنا أرتي كور وحاد حنون بدن marka maalintaas waxay ahayd yani intii emergency aan ka shaqeynay 15 sano aan ka shaqeynay waxa ii ahayd wax cusub ay bari runtii waxaan ku jiifaa inay waxaas wax ka badan dhici karaan yani waxa la siiyay taxadarka waxa ka ma hadlayo inaad u digtoonaatid yani quraanka wuxuu leeyahay khudu xidrakum war digtoonidiina qaata waxa uu qabaa jitoorka in weli aan waxba laga baran wixii dhacay si la mid ah waxa uu dhaliilsan yahay siyaasadda caafimaadka ee lagu hagayo dalka taasoo aan waxba doorin maalintii Oktoobar 14keedii 4 sano ka hor dhinaca kale markaan fiirsho haddii aan iraado yani 2017 14 Oktoobar wax badan lagama baran markaan leeyahay waxaan ka wadaa yani infrastructure-ka caafimaadka ee waqtigaas jiray waxba lagama bedelin haddii ahaalad emergency-ga in la koolkooliyo kor loo qaado cisbitaalada emergency-ga in la badiyo ambulansooyinka in la badsho shaqaalaha caafimaadka emergency-ga ka shaqeeya in la badiyo yani infrastructure-ka noocaas ah maalintaas jiray waxba lagama bedelin waayo haddii ay hal maalin 500 oo qof ay dhimatay kun in ka badan ay dhaawacantay waxay ahayd in wax laga barto oo la yiraahdo waxaan ka badan waa dhici karaan ka badan iyo ka weyn waa dhici karaan oo yani adeega caafimaadka xoog in la saaro marka runtii waxaan aad ugu xumaartay wax badan aan laga qabanin oo yani gaabis badan oo jira meeshaas ama ha ahaato qoliyaha siyaasadda u dejiya caafimaadka ama ha ahaato dadka u fulinaya labadaba aniga waxaan isleeyahay xogaa meeshaas gaab weyn ayaa ka jira dadka iyo dawladda ayuu u soo jeediyay talooyin la xiriira horumarinta adeegyada caafimaadka dalka adiga maxaa ka hadlaaba dad 10 qof ama 10 ambulance dad diyaarsid oo maalin kasta baabuurta kor jiifaan shidaalka u diyaarsan yahay marka wax dhacaan ay boodaan maxaa ka halaabay wax ka halaabay mal adduunka dhamay ka jirtaa adduunka dhamaa leh emergency isbitaal aan lahayn male magaalo aan lahayn mala magaaladan 3 milyan ay ku nooshahay ee aan lahayn yani emergency response aan lahayn ka war amin ambulance waa dad yar oo masaakiin oo is abaabulo waa laakiin shaqo ay ka qaban karaan ma capacity ka weyn u baahan tahay gobolka u baahan tahay dawladda u baahan tahay wasaaradda u baahan tahay waa shaqo ay u baahan tahay dad badan ka wada shaqeeyaan waa aniga advice-kayga ama recommendation-kayga waxa waaye war wixii dhaca waxa laga barto muslimka 2 mar god lagama qaniino maxay tahay sababto haddii shalay godkan laga qaniino birta ku laaban waxa weeye haddii meeshan shalay wax ka dhaceen birina waa dhici karaan wax u diyaarso isxilqaamayaal muna xasan maxamed muna axlaa waxay ku lahayd door isxilqaan ah adeegyadii hagar la'aaneed ee 14 Oktoobar waxayna la wadaagtay maalintaasi meeshii ay joogtay wixii ugu horeeyay ay xasuusan karto 4 sano kadib waxa kaliya aan gali karnaa waxaan isku daynaa bal inaan marka ugu horeysa maadaama qaylo dhaanta isbitaalada dhalinyaradii aan intaan wada wacnaa nin walba meeshii uu ka gaari karo isbitaalka ugu dhow ha loo weeyo ha aado si dadkii loo badbaadiyo waxaad noo soo yeerayeen dhiigyaro jirto dhiigag aysan jirin isbitaalada dhanna ay kayd haysanin ilaa digfeer oo waxyar haysta maahane qof kasta oo dhiigaga la waayana annaga Soomaalida ugu O+ ugu badan dadkeena ugu badan dhiigaga la waa B+ A+ iyo meenisyada kale oo meenis iyo B meenis iyo la waayay waxaan doorbidnay horta annaga inaan inta baxna isbitaalada tagna sidee ku gaari karnaa marxaladdu way adkayd waa isla raadsanay inagoo dhowr iyo 10 baxnay isbitaalka Martiin waxaan tagnay Madiina tagnay Digfeeraan tagnay waxaan isku daynay inaan dhiigaga bixino dhiigaga la raadinayay qaarkeen waa laga helay anoo kale inta waxaan ahay gabadhii ugu horeyso dhiiga shabteen aha markaas oo marxaladdu ay taagan tahay waa walaaceeda badnaa aad u xanuun badneed waxaan isku daynay inaan haddana dadkii dhaawacyada qaarkood oo guryaha hoostooda ku jiray aan wax ka badbaadino markaan iraahdo qofkan qabo aan laaco waxaan arkayay sawir oo lafo iyo dambas yani qofaan u maleeyaa inuu yahay haddana markaan laacno wuxuu noqonayay dambas runtii maalmahaas waxay ahayd maalmo aad u xanuun badan oo saameyn nolosheeda ku yeelatay waxay aragtay dad dhiiran oo looga faa'iideysan karay xasilinta dalka iyo buddiga bangiga dhiiga oo Soomaaliya yeelato laakiin waxay qabtaa in fursadaasi la dayacay waxaan sameynay 3 qofood oo coordinator group ama dadka isku xiraaya dawladii iyo shacabkii iyo dhalinyaradii isku xiraayo
oo aniga iyo Faadmo Cabdi Cali iyo Maandeeq Xaaji Cilmi ay yihiin si dadkii aan loo kala baahin oo nidaamkii jarka hay dhalinyaradu aysan u kala fakanin runtii dareen xanuun badan oo ahaa aad u xanuun badnayd 10 cisho gurigeyga kuma noqonin habeenii maalin waxaan joogay santarka oo dhalinyaradu dhan ay wada joogtay groupkayga markaan calooliyoodo oo xanuunsado oo ooyo waxaan fiiriyaa dhalinyaradii in wadankan dhalinyaro nool oo han leh oo bulshadooda u istaagaya oo garab taagan ay joogaan shaqada kadib marxalad adag oo wadanka ku jiray waxay ahayd maalin madooba ahayd 14 October oo warku taalo nagu wada noqotay oo dhalinyarada qaarkeed trauma ku wada riday oo qaarkood ay door bideen wadanka ka baxaan laakiin haddana marka la hadalno oo dhahno wadankan anaga iskalnaya uga tageynaa ninka shalay reerka caruurteeni iyo maatadeeni baabi'iyay maanta inta u baahnayno aan wadanka haajireyna bahal galeynay noqonaysa inta yartaa wadankan uu haysto asidka ama hantidu waa dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradii dhiirigelinteeni runtii ayaga inta badan na dhiirigelinaya markaan calooliyoodo oo ooyo oo xanuunsado ma ahayd xaalad adag ahayd oo aad u xanuun badan marka laga hadlayo 14 aniga maalin waxay ii tahay maalmaha iigu xanuunka badan xaqiiqdii madaxda dalka ee hadda iyo waagaas ay la wadaageen iyada iyo walaalo kale oo caawiyaal ahaa talooyin oo haddii ay furi lahaayeen looga baaqsan karo qasaar lamida tii hore khibradayda dhibaatadii dhacday markii laga yimaado iyo xaaladii dhacday ee bangigii baahidiisu weli way taagan tahay guud ahaan wadankana waa ka taagan tahay marxaladda aan ku jirno oo ah dhig joojina marxaladda aan ku jirno oo dagaal iyo duulaan dad wadankan xasiloonidiisa iyo deganaashadiisa diidan ay yihiin haddana baahidii way taagan tahay marxaladaasna marxalad taagan oo markasta u baahan in laga dhiidhiyo waayo oo laga hadlo waayo bangiga dhiigga wadankan wuu u baahan yahay bangiga dhiigga bas ma ahana bangiyaal badan uu u baahan yahay wadankan in la helo xaaladaas runtii xaalad adag waayo u baahnayd 4 sano ka hor in dawladdu ay mudnaan koowaad siiso oo ay aad diiradda u saarto laakiin waqti kasta waxa la dhaxaa waqtigeeda xaaje kasta waqtigeeda ahaata waa rajaynayaa hadda beeskiisii waa soo arkay waa la dhisayay qofka ugu horeeyo oo dhalinyarada ka mid ahayd gurmad qaran oo tagaan ka mid ahaa isbitaal banaadir lagu dhisayay laakiin waqtigii la rabo loo baahnaa ma dhicin hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimaha hay-adda Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee shaqo ahaan looga fadhiyay ka jawaabidda dalabaadka dhibanayaashii Zobe ee qasabka ahayd in dalka looga saaro arrimaha caafimaad dartood ayaa isna xusuustiisa nala wadaagay wixii ugu horeeyay uu xasuusto 14 October 2017 4 sano kadib habeenkaas iyo habeenadii xigaba waxay noo ahayd soo jeed si gaar ah aniga waxaan u qaabilsanaa anigu maadaama aan matalay ahayd socdaalka jinsiyadda oo qaabilsaneed baasaboorada dadka qaar ay suurtagal ahayn dalka gudihiisa in wax looga qabto sidii loogu fududeyn lahaa in loo qaado dalka dibaddiisa waxaan ku wareegnay oo tagnay dhammaan isbitaallada dadka la dhigay oo magaalada Muqdisho oo aad u fara badnaa waxaan halkaa ku aragnay dad Soomaaliyeed oo dhibaato weyn loo geystay oo jirkoodii gubtay oo jirkoodii googo'ay oo wax aan la filanayn ay ku dhaceen ayaan kala kulannay isbitaallada waxaan la kulannay dhaqaatiirtu inay dadaal badan sameynayeen hase ahaatee waxa dhacay iyo xaddiga dhaawacyada meesha yaallay awgeed inay ahayd arrin aad u adag si gaara aniga iyo saraakiisha ka socday hay-addu waxaan ugu xil saarnayn dadka in loo sameeyo documents in loo sameeyo ay lagu qaadi karo oo dibadda lagu geyn karo caafimaad waxaa ku jiray dadka inta badan ay ahayd in documentska loo sameeyo waxay u badnaayeen dad gubtay oo aan sawirkooda la heli karin iyo dad jirkoodii qaybo muhiima ay go'an yihiin
waxaa ku jira dad koomo ku jira oo aan aysan joogin dareenkooda uusan joogin waxaa ku jira dad aan la garanaynin oo xitaa aan la heli karin ahalkoodii iyo wax yaqaan xitaa aan la heli karin iyo wax laga qori karo maxaa la yiraahdaa xogta saxda ah aan la heli karin maadaama marka qarankii Soomaaliyeed aan u matalayna waxaan sameeynaa wax kasta oo markaas ay saraakiishu iyo anigu baan sameyn karnay runtii shaqada saraakiil ayaa u soo jeeda habeenadaas waxaan xasuustaa marka dadka qaar sawirkoogii la waayay dadka qaar guryahoodii inaan tagnay oo sawirro hore laga raadiyay maadaama ay gubteen oo wajigii la heli karin iyo qofka wixii lagu garan karaba la heli karin qaar waxaa jira koomo ku jiray oo dadkoodii la waayay oo dadkoodii aan raadinay oo qaarkood aan helnay yani culays aad u badan ayay ahayd muddooyinkaas inkastoo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay isku howshay sidii ay ula macaamili lahaayeen dowladihii saaxiibka la ahaa Soomaaliya ee u soo diray diyaaradaha gargaarka si loo daadgureeyo dadka haddana hay'addu waxay ku dhibtootay helida aqoonsiga dadka oo aan lahayn kaydad hore oo dokumentiis ah taasi oo dhalisay in lagu dhiso wax walba tabartu hay'addu ay lahayd waxa uu jeediyay bulshada Soomaaliyeed inay ku dadaalaan sidii ay u dhigan lahaayeen documentiis caawinayo mar walba goobahooda kala gedisan iyo sawiradooda waxaan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba u sheegi lahaa in qofku documentiis oo samaysto gaar ahaan kuwa safarka in documents cadeymo ah la qaato oo qofku markuu dib gaaro haddii isagu uusan awoodin inuu sheego dhibaatada gaarta ama is sheego in la heli karo documents jeebkiisa ama laga heli karo qofkaasi laga tixraaco waxyaabay maalinkaasna qabsado waxa kamid ah qof aan la garanayn oo koomo ku jira oo aan magaciisa xitaa aan la garanayn dhibaatooyinka qabsaday kamid ahay marka in documentska la sameesto guryaha la dhigto in waxyaabo cadeynaa qofka tixraaciisa iyo magaciisa laga heli karo inta badan telefoonada dadku telefoonay wateen waa gubteen haddana inta badan telefoonadu waa xiran yihiin oo waa telefoono maartay amni ku xiran laakiin waxa ka fiican qofku inuu documents qaato mar waliba ayaa aad u fiican taasna waa ku talin lahayn ugu yaraan qofku inuu sawiradiisa la heli karo oo wax kasta oo dhac marka maalin xanuun badan ay ahayd dadkii waxaas geystana kulley inagu marqaatiyaan ka nahay waxaan marqaati ilaahay hortiisa uga nahay wixii ay geysteen waxaan rajaynaynaa aakhiro haddii la tagana maalinka xilla is xisaabinayo inaan ku marqaati kacno inay dadkaasi dhibaatadaasi ay geysteen annaguna aan marqaati ka ahayn dhaqaatiirtu ay marqaati ka yihiin dowladda Soomaaliyeed ay marqaati ka tahay dadkii Soomaaliyeed arkay ay marqaati ka yihiin laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa u qabtay eedeysanayaal tiro badan balse ugu dambeyn horgeeyay xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida 5 qof oo midabaxsad ahaa xanuunka dhacdadaasi kuma filnayn in loo ciqaabo dad intaas la eg marka loo fiiriyo aragtida ku dhisneed dareenka xamaasadaysan waxayse maxkamadeynta afarta eedeysana bilaabatay bilowgii January habraacyada sharciyeed ee laga maarmaanka u ah dacwad qaadista maxkamadeed kadib waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah Xasan Aadan Isxaaq oo magaciisa afgarashadu ahaa Cabdinaasir Jeeri halka saddexda eedeysana ee kale ee laba kamid ah ay sii deysay kan kalena ay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah Febraayo 6, 2018 qareenadii u doodayay eedeysanayaashaasi ayaa walaac badan qabay waayadaas oo kaga imaanayay eheladooda waxayse sii walaaceen markii gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shooje gudoomiyihii dacwadda ahna gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida aabihiis lagu diray afaafka hore ilinkiisa guriga ka deganaa Dharkeenley maqrib kadib dilkaasi oo ku soo aaday maalintii loo ballansanaa dacwadda uun maalin ka hor abukaata Cabdiwaaxid Cismaan Xaaji oo kamid ahaa dhowr iyo 10 qareen oo maxkamadda qayb ka ahaa ayaa isna isdul taagay doorkoodii iyo sida ay isku diideen filashadooda iyo go'aankii ka yimid garsoorka ciidamada qalabka sida dad fara badan oo dacwadda dhageysanay oo dhinacyadii waxay yireen waano dhamaato xal aabiisa la dilay maanta waa naga aarsana waxay filayeen inuu argos dhacay kulli nimankii dacwadda waxay yireen waa iska sabarn xal aabiisa shuuta ma la dilay waano dhamaato maanta laakiin taariikhda intaan loo yarahay 37 sano weligay ma arkin
go'aanka halkaa ka soo baxay go'aanka wuxuu ahay go'aan ay danaynayeen intaasoo qofood Soomaali dibadda joogto gudaha ku nool meel kasta joogto qaramada midoobay wadamada ajnabiga maxaa dhici doona go'aankaas sidoo noqon doona go'aan la yaab leh ahay asagoo Allah naxariista aabihiis inta oo geesinimo ku yeestay hal saaciib bar waa taagnaa meesha gudoomiyaha hal saaciib bar subaxnimo taagnaa garsooraha ikhtiyaarka lahay ma fiirinin dawladda Soomaaliyeed maxay ku dhahaysaa ninka dadka qaarkiis dadka mas'uuliyadda ka sareeya ka baqaan xukunka ay soo saarayaan waxay leeyihiin dawladda ma qancina shacabka ma qancina war Soomaaliyeed ma qancina walaalaha ma qancina abawd la dilay ma qancina dadkan dhibanayaashii oo inta qofood laga dilay waa malayn kartaa ma qanci doona go'aanka halkaas ka soo baxo marka go'aankiiba wuxuu ku saleysnaan karaa rabitaanka dadkaas kale military waa laga sareeyaa taliyaha ka cabsanaa taliyaha ciidanka ka cabsanaa wasiirka gaashaandhigga ka baqa madaxweynaha joogo ra'iisul wasaaraha joogo cidiya joogto cidaas oo dhan waxa isdheeyna marka go'aankan maadaama go'aan culus yahay dadkan waa la iqaaba fursad ay leeyihiin mala laakiin aniga qareen ahaan waajibkeena gudanay go'aankii ka soo baxay marka go'aan la yaab leh ahay go'aan ee ka suurooban waqtigan xaadirka qof Soomaali oo garsoore oo ka suurooban oo ahay go'aan qofka bini aadamka maskaxdiisa galis sidee ku qancinaysaa 14 October oo inta dhibaato dhacday in dadkii lagu tuunsanay qaar ka mid la sii daayay geesinimo u baahanta gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa isna xilligaasi ku fasiray go'aanka ay qaateen inay ka baraxtireen ra'yiga dadweynaha muhiim u ahay go'aanka maxkamadda ay soo saartay maxaa yeelay wuxuu muujinayay in uu dalka ka jiro garsoor cadaalad ah oo daahfuran oo xakamayn karo kiis dhacay inta uu rabo culayskiisa la ahaaday sababtoo ah anagu garsoor ahaan waxaan ku dhiiranay in kuwii lagu soo eedeeyay qaraxa oo ay ku cadaan weysay oo lagu cadeyn waayay eedii loo haystay inay maxkamaddu sii deysay taasoo muujinaysa in aan ka fogaanay waxa la yiraahdo waxyaabaha cadaaladda mamnuuc ka ah oo ay ka mid tahay xamaasadda iyo in uu ra'yiga garsooraha hogaamiyo ra'yul caamka dadka xilligaas oo ahaa in dadku ay u muuqato kaliya dhibaatadii dhacday kaliya ay u muuqato garsoorku uu ka fogaaday arintaasi wuxuu ku adkaystay oo ku dhabar adeegay inuu cadaaladda siday tahay u fuliyo xasan aadan isxaaq oo isaga wada ka ahaa gaari nooha ah oo ku qarxay dan wadaagaha isla xilligii qaraxii Zooba daqiiqado kadib xilli ay ku socotay baaris ayaa ka sheekeynaya doorkiisa hogaamineed ee qaraxii Zoobe ee ku soo dhamaaday xasuuqa shacabka kii soo wacay markii kii mootada soo wacay ay u dhahnaayo xagga joogtay u dhahay si wax u jiraan ay horta markii soo wacay qarax ma hawa yiri qaraxna iyo gaariga weynaa way anagii saarna waxa yiri gaari wala soo xabadeeyay meelka ordan waa gaari meesha dhoobaneed marka ka degaan yiri ka degtay iyo marka ayaan badhan oo taabtay manana gaariga waa qarxiyay u dhahay wadada qarxi kale aniga ka taagan dadka ku dhex jiro ayaa qof marka dharaacda gaariga soo istaagay dadka gacmaha ka soo tagay wareeyada gaarigan yaa watay markaas ayaan gaarigan awit kaali u dhahay qof baakinkii qaatay dheer raba umalinay waa u imid waraha ka imaatay u dhahay marka xamarweyna ka imaaday u dhahay waa baarama muranay xamarweyneeda xagee ka deganay u dhahay uma sheegeen hor waan doogay warka xagee ka imaad marka waa muranay waa ka shakiyay ayaan furaha kan gaariga furaayiskan u dhahay marka furaha qaadan way wadeen andahay waxba ma xirin way wadeen wadada taas oo marnay telefoonkan markaas waan waday way soo wacayeen marka inaan qabto oo barnaamijkooda aan galan marabin aylaan waxday waa fashilmaysaa moogtaa marar qaar marka waa dareemaan in aan gacan lagu hayo oo la qabtay dareemaan ka bacdi marka gaariga waceen gaariga soo waceen si ku qariyeen marka sanad kadib ayaa lagu fuliyay jeeri xukun dil ah isla maalintii qaraxii Zoobe sanadii 2018 taariikhdu markay ahayd 6 bishii 2018 dambiile shabaab xasan aadan isaaq cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah
qisaastii dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka kala dhacay isgoyska Zoobe iyo waddada Danwadaagaha 14 Oktoobar 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha 10aad 2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq. afayeen u hadlay al-shabaab oo lagu magacaabo Cali Dheere ayaa argagixisadu u soo dhiibeen fariin ah in dadka la dili karo iyadoo loo haysto inay gaar haraysay sidoo kalena ay yihiin dadkaasi la haystayaal haddii la iska dhaafo ay sii badan karto khatarta gaalada. hadda ogaada waa magaalo ay ku nool yihiin qiyaasta tiro ka badan 3 milyan oo loo dilayo waxaa la nool gaalo oo markii la isu geeyo tiradooda aysan dhaafsiisnayn 20,000 oo xamar kaliya ku ekeen. fariintan ayaa al-shabaab baahiyeen kadib 28 Diseembar 2019 oo ay ku dhawaad 100 qof nolosha ugu aqoonsadeen qarax ka dhacay Kiss-Control Afgooye. way bannaan tahay in gaalada lagula dagaalamo wixii la awoodo xataa hadday ku dhex jiraan gaaladu muslimiin ka tiro badan oo la hubo weliba inay dhammaantood meesha ku dhimanayaan. sharciga islaamka iyo caqliguba waxay sheegayaan in khayaarka dambe uu saxan yahay. annaguna kaas ayaannu qaadanay. ciidan ayaa kacbada ku duulaya markay meel dhexa marayaan ayaa dhulka lala goynaya koodii u horreeyey iyo kii u dambeeyey. markaasay caaisha ku dhahday rasuulka sallallahu alayhi wasallam see loola goynayaa kii u horreeyey iyo kii u dambeeyey iyadoo ay ku dhex jiraan suuqlaydoodii iyo dadaan iyaga ka mid ahayn. wuxuu ku jawaabay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa lala goynayaa kadibna aakhiro niyaadkoodii ayaa lagu soo saari doonaa. Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaan weydiiyay in loo daliishan karo dadka mas'alada tatarruska oo ay al-shabaab mar dambe la soo baxeen kadib dad badan oo rayid ah oo ay dileen. arrinkaasu arrin khaldan weeye diinteena markaa fiirisid iyo siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ku cad in dad gaalo oo badan la badbaadiyey ayadoo muslimiin yar ku dhex jiraan sababteeda. nabigeena sallallahu alayhi wasallam markii uu maka aaday si uu cumraysto Xudaybiya cumradaas waa la baajiyey waxaa loo baajiyey in uu samaysan dagaal ka dhicin. hadduu dagaal dhici lahaa oo mako gaaladii deganeed la dagaalami lahaa waxaa dhici lahayd baa la yidhi dad yar oo ku dhex jiro muslimiin oo mu'miniin ragga dumar iskugu jira ayaa uu dhibgaari lahaa. ayagaas yar ayaa dagaalkii ilaahay subxaana wa tacaala uu dib u dhigay uu baajiyey oo nabigiisa sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa uu dib u celiyey. gaaladii waaweyneed oo maka dhoobneedna la iska daayey. marka gaalo badan ayaa ku badbaaday dad yaroo muslimiina ku dhex jira. raggaana waxay leeyihiin dadka laynayaa maantay dad muslimiino badan baan halaagaynaa maxaa yeelay gaalo yar baa ku dhex jirta. 2 askari iyo 3 askari baan dilaynaa 10 iyo 20 iyo 100 iyo 100 baan dilaynaa oo muslimiin ah. marka waa barnaamij cagsi ku ah siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diinta maslaxadeeda sida ay ku socoto iyo sida ay xurmada dadka muslimiinta lahaan jireen ah in qofka muslimka xurmadiisa darteed xataa ay gaala ka maaragtay ay ku baaqsato ama gaalo ku fakato. Allah subhanahu wa ta'ala sida kula suuratul Fath hum alladhina kafaru wa sadduukum 'an al-masjid al-haram wal hadiya ma'kufan an yablughu mahillah. waa kuwii gaaladu kuwii ka maaragtay yani gaaloobay oo xaramkii ilaa idin diiday idinkoo maaragtay soo cimraysa soo xarmaday hadigii wada calaamadii shacaa'irtii muujinaya oo in leedin celiya aysan banaanayn macquul ahayn ayay idin hor istaageen baa la yidhi. wuxuu leeyahay walowlaa rijaalun mu'minuun wa nisaa'un mu'minaat haddaysan jiri lahayn niman mu'miniin ah iyo dumar mu'minaat ah lam taclamuuhum aydan ogeyn meesha ay joogaan ay ka degan yihiin maka oo marka ay dhacayso an tada'uuhum inaad ku istaagtaan oo aada jiirtaan ama wax gaarsiisaan oo markaa fatusiibakum aydan asiibto minhum kuwa xaggooda macaratun ceeb idin asiibto bikayri cilmin ogaan la-aanshaha. ceebtaas idinku dhacaysa oo dadka muslimiinta ah oo maka jooga aad dhibka gaarsiinaysaan ceebtaas baa laydiin diidahayaa la yidhi. saas darteed baa dagaalkii loo baajiyey.
sidaas darteed ayaa nebiga sal ly slam iyo muslimiintii soo cumraystay ay dib u noqdeen ayadoo ceebtaa la diidahayo. ceebta ayada marka oo la diidahayey ayay maanta raggaan ku dhacahayaan, soo garamaysid. marka waxaa weeyaan tawajuha diinta iyo qur-aanka iyo nebiga sal siiradiisa iyo saxaabada siiradoodu waxay ahayd in ceebta laga cararay ahayd, waxay ahayd in sumcadda muslimiinta la ilaaliyo, waxay ahayd in dad muslimiinah aan la layn ayadoo oo dad gaalaa la leeyahay waa loo sii marahayaa. waxay sidoo kale al-shabaab horey u haysteen qiil ah in been laga sheegi karo laynta dadka, iyagoo tusaaleynayo in nebi ibraahim uu iska inkiray burburinta asnaamta, taasi oo ka dhigan fahamkooda diiniga ah uu qalloociisa dhaafay xad fasiraad laga bixin karo. sheekh bashiir ayaa la wadaagay dhalinta la marin habaabiye ee ka tirsan maleeshiyada al-shabaab inaysan ahayn sida ay u fasireen argagixisada sababta ay u soo degtay aayadda. ilaah subxana wa taala marka aayadda ayada ahayd wuxuu ku darahayaa low tazayalu, haddii gaaladaasi low tazayalu haddii dadka muslimiinta ah muminiinta ama ka joogay ee gaar u bixi lahaayeen oysan ku dhex jireen dadka gaalada ah, gaalada waa la cadaabi lahaa iyo dagaalka lagu fasixi lahaa. marka in muslimiintu ay ka socnaadaan dadka gaalada ah ayaa maaragtay jihaadku u baahan yahay, laakiin hadday isku dhex jiraan oo dhacayso in dadka muslimiinta ahaa ay dhib ay gaarayso, halkaas in la joojiyo weeye. waaba haddii meesha ay gaala jirto, laakiin gaaladu aawe midkan soomaaliga shacabka a muslim a leedahay, war askarigu soomaaliga ah muslim kale weeye, war shaqaalaha soomaaliga ah muslim kale weeye, war dadka muslimiinta ah askartooda iyo shacabkooda dad muslimiin aho ahlu tawxiida weeye. ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala, ceebtana iska ilaaliya, ceebaha aada gasheenna ummadda u ictiraafa, ummadda u qirta, ummadda maaragtay u soo noqda, allah subxaana wa tacaalana u soo noqda, diintiisa magaceeda ku cayaarteenna u soo noqda. ilaahi subxaana wa tacaala kuwii iskaalmay allah naga dhigo. waxaan kusoo khatimayaa qaraxii soobe asaga ahaa, wixii ka dhiman oo dadkii agoonta ahaa iyo baahiyooyinkii ka dhashay, wixii aan la daboolin la daboolo oo la raadiyo oo la dhammaystiro, oo dadkii dhimanaa hadday yihiin dhaawac, hadday yihiin maxaanku ur agoon, in laga warqabaan soo jeedinaya insha allahu tacaala. ilaahayna musiibooyinka allah naga hayo, dalka iyo dowladda iyo diintan allah noo ilaasho. qaraxii zoobe waxa uu kaga jiraa kaalinta afraad qaraxyadii adduunka ka dhacay qarnigan aynu ku jirno. waxaa xagga kala sarreynta kaga horeeya Mareykanka oo mid ah 2 qarax oo Nigeria ah iyo kii zoobe oo ah kan afraad, halka Afrikana uu ka yahay kii saddexaad. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tabinteeda aan isu dul taagay qaraxii zoobe. aniga iyo saaxiibada kale ee barnaamijka igala qayb galay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.